magacaygu waa Maxamed Cabdalla Waasuge ku soo dhawaada farqurxinta qaybteeda Laatiinka nooca koowaad oo aynu ugu magac darnay Italic 1 ayadoo ay jiri doonaan noocyo kaleeto sida Italic 2, Italic 3 iyo qaybta calligraph-ka ama isku dardarka. qaybtan Italic 1 waa qayb normal ah oo caadi ah oo inta badan wax lagu qorto, waana qaybta ugu fudud qaybaha farqurxinta. taariikhdana maanta waa 27-ka bisha May sanada 2020. farqurxinta qaybtan waxaan ku qaadan doonaa cashirka koobaad xarfaha yaryarka annagoo ku socon doona ABC-da. koorsada noocan Italic 1 waa 7 cashir. cashir koobaad A to Z ayaan qoraynaa. aynu bilowno. xarafka A dhaxda ayaa qabasiinaysaa labada sar ee dhaxda ah aan ku celiyo. C ayaa qoraysaa, kabacdina usha ayaa kor kaga soo xiraysaa adigoo dhaxda ku wadayo. xarafka B kor ayaa ka soo bilaabaysaa, dhaxdana waa ku laabaysaa aan ku celiyo. B kor ayaa ka soo bilaabaysaa adigoo usha jeefinayo una badinayo dhinaca midigta. xarafka C asigana waa sidii eeda ayaa qoraysaa, usha kor ka dhaaftid, dhaxdana waa ku qoraysaa. xarafka xiga ee D C ayaa qoraysaa, kabacdina usha ayaa kor ka saaraysaa adigoo kor ka soo bilaabaya usha. C ayaa qoraysaa, usha ayaa saaraysaa. xarafka ku xiga E dhaxda ayaa ku qoraysaa aan ku celiyo. F kor ayaa ka soo bilaabaysaa, kor ayaa ka soo bilaabaysaa, dhaxdan xariiqa yar ayaa ka marsiinaysaa. xarafka noogu xiga ee G C ayaa qoraysaa, kabacdina usha ayaa soo kor ka soo marsiinaysaa aan ku celiyo. C ayaa qoraysaa, usha ayaa soo marsiinaysaa adigoo hoos soo dhaadhicinayo. xarafka H kor ayaa ka soo bilaabaysaa, kor ayaa ka soo bilaabaysaa. xarafka noogu xiga ee I sigana dhaxda ayaa ku qoraysaa. xarafka noogu sii xiga ee J asigana hoos ayaa u soo dhaadhicinaysaa, saddexda sar ee dhexe ayuu qabsanayaa. xarafka noogu xiga ee K kor ayaa ka soo bilaabaysaa, K aan ku celiyo. xarafka noogu xiga ee L waa usha, L aan ku celiyo, aad bay u fududahay. xarafka ku xiga ee M dhaxda ayuu ku qormayaa, M aan ku celiyo. xarafka ku xiga ee N isna dhaxda ayuu ku qormayaa, waa N oo hal u laga reebay. xarafka ku xiga ee O isigana dhaxda ayuu ku qormayaa. xarafka noogu xiga ee P dhaxda ayaa ka bilaabaysaa, hoos ayaa u daadegaysaa, waa ku soo laabanaysaa, dhaxdana waa ku laabaysaa aan ku celiyo. B hoos ayay u baxdaa. xarafka noogu sii xiga ee Q hoos ayaa isigana u soo dhaadhacaysaa. C ayaa qoraysaa, kabacdina usha ayaa kor ka soo marsiinaysaa. xarafka noogu xiga ee R isigana aad buu u fudud yahay, dhaxda ayaa ku qoraysaa. xarafka S asigana aad buu u fudud yahay, dhaxda ayaa ku qoraysaa. S aan hal mar oo kale ku celiyo. xarafka noogu xiga ee T kor ayaa ka soo bilaabaysaa, T. xarafka U dhaxda ayaa ku qoraysaa,
u aan ku celiyo, aan bogga kale ku dhammaystiro xarafka v dhexda ayaa qabadsiinaysaa asigana v aan ku celiyo, xarafka noogu xiga ee w isigana waa v-da ayuu egyahay, dhexda ayaa ku qoraysaa x isigana waa laba ul oo isdhaafsiisan, dhexda ayaa ku qoraysaa y hoos ayaa usoo dhaadhicinaysaa, waa u-dii oo lasoo dheeray oo sadarka hoose la keenay, z iyadana dhexda ayaa ku qoraysaa, z labada line ee dhexda ayay ku qormaysaa. inta ayaa kusoo gabagabeynayaa cashirkii koowaad oo abcdan ku qaadanay dhammaantood. waa ballankeenu waa cashirada kaleeto haddii oo alla yiraahdo. asalaamu calaykum waraxmatullah.